iyo raxsada fiicanta xaaladada jooga alxamdulillah soo jeedaan halkan ayaan marti ku ahay waxa soo dhaweynaya Xasan Malabsade oo halkan ku nool isaga iyo waliba saddexdii saxaas oo san ka kala keenin xaafado kala duwan balse halkan ay nolol ku wadaagaan waxaan arki doonaa nolosha ay ku nool yihiin qoyskan هاي سيليا في عنتين ما أنت هذيك مرتدينا في عندي سما هاي سين لو سدوينا ما شاء الله ممتاز عاشو iyo sumayo waa saddexda xaas ee guriga qura kula nool saygooda Xasan Cabdirashiid oo loo garan og yahay Malabsade nolosha ka dhaxaysa marwooyinka halkan wada degan waa mid ku dhisan iscaawin iyo isku faraxsanaan qofba qofka kale ayuu ku garabsiyaa qabashada shaqada guriga ee maalinlaha ah Xasan waxa uu iga waramay sida uu kala hor guursaday xaasaskiisa iyo qaabkii uu ugu qanciyay in saddexdii saxaas qol kaliya wada degaan assalaamu calaykum markoowaad koonaan ku soo dhaweynaya maxaa la yiraahdaa maanta waxa aan ku barayaa walaalkay adiga bulshada daawanaysa marwooyinkeena maadaama aan soo booqateen gabadheeda ugu horeysa weyneed waa tana waxaa la yiraahdaa Caasha Cilmi Faarax waa xaaska weyn ma sha Allah gabadhaas ku xigto waa marwadeedii labaad Mumtaaz Maxamuud Cilmi Allah waa xaaskii labaad gabadhii saddexaad oo guriga dambeystina waa tana ayadina waxaa la yiraahdaa maxaa la Sumay Axmed Sheekh marka barasho wanaagsan brother ma sha Allah niyow waxa waaye maxaa la yiraahdaa waxaan deganahay gurigeena waa weyn yahay waxaan deganahay laba qol kamid ah waxaan degan aniga oo hadda kula hadlayo waxa qolkayga jiifto iyo nidaamkayga fadhiyo waa qolka kale tan waxaan degan gabdhaha marka waxa waay waqtigooda iyo jawigooda waa saxan yahay mid kamid ah habeenkii waxa waay faatixada iyo aan ilaahay u dhawaanin maarid ayaga soo gartan Allahu akbar goob lagu gado agabka la isku udgiyo ayuu leeyahay Malabsade waana halka iskala jaan qaadeen saddexdii saxaas qofkii markaas aan ka helo waa la hadlaa waa isbaranayna marka isbarano aan xiriirkii u sheegto inay waxa inaan u sheego waxaan leeyahay qof marwo nin xaaslanahay gabadha guriga joogto anigina waa ka helay infant dooq waan jiraan infantade marka ayagiina wallahi maadaama ay arkeen ani feelingkayga ama in aan waxa aniga rabitaankayga heerka u gaarsiisan yahay idaacadnimadeeda markay arkeen way soo dhaweeyeen infant ani hadda ma dhigi karo waxaas caqabadaas adag kala kulmisdii karo ani wax walba aniga oo jiro waxaan u sheegaa macnaha waa gabdhayga dan ayaga familkooda ka soo dhaadhicinayaan oo wax rabaan marmar qaar marka aan kaftameen ani aado cid amal jiqma kaaga dhigay ani ciyaalka xaafadaas nanaanay amal waxay taagayeen maamada amal ama odaga amal wuxuu dhahay qof meel waxad meel ka mudo marka adiga meelaan ku wacday hadaa ku qanacsantaada hortaada hor alla ay soo dheel amal baad asaska wiilkan dhalinyarada ah ayaa ka warbixiyay sida ay ugu qanacsan yihiin inay wadaagaan hal say iyagoon isku nacayn markii hore si loo filaan ila noqotay waana qaadan waayay laakiin markii dib xaajigayga waa ka bidin waa samaan waa iska yeelay hadda ka warna lishii alxamdulillah walaa ku faraxsana maadaama aan isfahanay gabdhii hal meel isugu nimaanay wax badan aan isla dhaqanay kale hadda waan ku faraxsanahay nolosha aan ku noolnahay aniga nolosheeda waan ku qanacsanahay xaajigayga iyo gabdhaha farxadan kula noolahay sidii farxadda reerkay kula noolaan jiro kaleeto يعني تاس معناها فسرات مو أباهنا يعني وحا أنا كوقنا عسناي بهيت مهنو ما دام حاسك ودن بيس ويعني وجرسنايو كفر حسنا rajada Malabsade ma ahan oo kaliya inuu ku ekaysto saddexda xaas ee uu hadda qabo balse iyagoo garbaha ka fadhiya ayuu waxa uu sheegayaa inuu jecel yahay inuu la guursado tii afraad horta wali waxa waay boos banaan fahant marka dad badan oo soo qabteen waa arkeen igu ka jimaayaan ma aqaan ma dareenkayga arkeen arano fahant dad badan oo soo qabteen waa arkeen dhaayaan faraa'intayn amal qofka afraad aniga waa fahant laakiin waxa waay warjeen insha Allah hadii la helayo aniga aan qof aan ka helo dabeecadiis ama akhlaaqdiis ama aan sidii kar saddexdan gabdhood caafimaadkoodaan rabaa qofkan uu nololaan kara hadaan sidii karo inaan ku soo darwarjeenaya in la guursado saddex ama afar ma ahan arin dood ka taagan tahay
balse waa ku qancinta haweenka wadaajinta hal hooy iyagoo laysla qabo. Maxamed Ciise Kona, Universal TV, Muqdisho.